shir jaraa'id oo maanta Muqdisho ugu qabtay saxaafadda wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii u suurtagalay canshuurtii dhawaan laga qaaday shacabka Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa shaaca ka qaaday in wasaaradda maaliyadda ay wax badan ka qabatay arrimaha canshuurta, waxaana uu soo bandhigay qaabka ay shacabka Soomaaliyeed uga qaadeen canshuurta. taasi taa weeye cashuuraha aan markaa soo rognay ama aan dhaqan gelinay wax badan baa ka soo kordhay waxa aan oran karaa waxa weeye cashuurahaasi bishiiba ilaa milyan iyo badh inay soo kordhiyeen ayaan oran karaa yani weli waqtigaa kooban laakiin wax badan oo wax ku oola ayaa soo baxaya meelaha yaryar ee daldaloolka haddaan oodnana oo fuqaraha xidhnana waxaan u malaynayaa inay wax kale ka sii badan ka soo bixi doonaan hadii ugu dambeyntii waxaan doonaynaa halka ugu dambeysaan hiigsanayna waxa weeye inaan kharashka dawladdu leedahay iska bixin karayna cidna waxba weydiisan wixii adduunyada la weydiisanaya inay noqoto waxyaalo waaweyn wadooyinka waaweyn ee waddanka isku xidhaya biyaha badda ku dhacaya joojintooda leydhkan qaaliga ah oo biyaha hydroelectricity la sameeyo oo biyaha laga sameeyo airlines ki arrimiyo la soo celiyo waxyaalaha waaweyn ee u baahan lacagaha fara badan inaan adduunyada weydiisano weeyaan laakiin waxaan kale mushaaraadka iyo gaariga fuelkiisa iyo cuntada militariga iyo inta aan cid kale weydiisanayno weli ma saaloonin intaan cid weydiisanayno waxayna agoontahay waxa weeyaan sida ugu dhaqso badan inaan arrintaa daboolo kharashada noocaas oo kala adduunka la mid noqono wala taabaqaadno ayaa laga maarmaana. Wasiirka ayaa dhanka kala tilmaamay in dhawaan laga furi doono qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho goobihii lagu qaadi jiray canshuurta. Sidaa daraadeed waxaan idin hayaa bashaarada ah inaan dhisi doono xafiisyadii cashuuraha lagu ururin jiray oo wada duusan ayaan doonaynaa dhawaan inaan dhisno waana ka qayb gelaysaan dad iyo Soomaaliyeed dhismaha wala badka la soo dhigaya waa laga wada qayb gelaya ta ugu horeysa waxa weeye degmada Yaaqshiid waxa laga dhisi doonaa kaas laga dhisi doonaa sidoo imika yahayna waa ka warhaysa kaas laga dhisi doonaa programkiisa waa ka waajidaysan yahay waa habaysan yahay kaasi waa mid weeye waxa ku xiga hawl wadaag baa ku xiga waa meelay cashuuraha lagu qaaday wada garanaysaan maantana sida ay yihiin ka warhaysaan asaguna waa kaas ayaa laga dhisi doonaa lacagtiisiina waa taan idin sheegay oo waan haynaa waxa ku xiga hodan Soomaan sheegin hodan baa ku xigta ayadna waa taa waxyaalaha sanadkan aan soo faa'iideysnay baa kamid ah waxa kale oo kamid ah anigu waxaan damcay markaan meeshan imeen dadka halkan jooga cashuuraha bartaan oo dhaqaalaha bartaan oo habka loo maareeyo ay bartaan marka waxaan doonaynaa school institute in la dhiso oo ay dadku laba arrimood ku bartaan cashuuraha iyo maareyntooda iyo maamulkooda iyo accountingkooda wax gooniyoo la barto weeyaan. Cabdikariim Maxamuud Shidin warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland magaalada Muqdisho.